بسم الله جيت كان waxaan rabaa inaan fakhdo fakhid waxa la yiraahdaa gacanta bidix baalka aan ku wato waxa la karo la yiraahdaa labood geedkan aan korahayna waxa weeye dhidig waxaan rabaa inaan mirahaas ka baxay fakhdo hadii aan la fakhdin geedku waxa weeye mirihiisu ma samaanayaan waxa ku dhacay cudur la yiraahdo saddexow mana u samaanayo miro laga cunimayo إن شاء الله فرسمة أركتام يا الله استعمالها وحويه جد كان وحويه دادي أبوه الرئيسية بيرتا عماية بيرتا الدهورات ويه حلقي تمرتو أي بحي سويه هذا فقد كيسي بقى عن له هيا إن شاء الله هذا بيرتا سيدان أركتانين دادكو كويري هاي حلقي تمرتاس ay bisayl gaarto ayay u soo guurayaan reer Baargaal xilliga kuleelaha ah oo dadku dhib ka qabo anaga alxamdulillah waxa weeye ma aan dareeno waxaanu isticmaalnaa timirtaas biyahaas iyo qabowgaasna waanu joognaa Ilaah baa noogu nicmeeyay waxaan rabnaa marka si ay meesha uga bixin awowgay saddexaad ayaa beerta beeray aan hadda gacanta ku hayo waxaan jeclahay insha Allah ilmahayga ilmihiisu inay sida aan u farsameynay oo si farsamaystaan ee ay uga shaqeystaan si sida waxa weeye diintu ay qabto waalidkii beeray na wax uga gaaraan iyaguna ay ugu noolaadaan aanayna u go'in ee wanaagaas uu sii socdo insha Allah baalka aan qaadanayo hadda fakhidkii waa ka sidaas baa loo isticmaalayaa loo fakhdayaa waxa weeye geedkan hadda waxa la baac baa la yiraahdaa baac waqtigii la fakhday xogaa waa ka yar dhaafay sida darteed fakhidka u deermayo sidaas baan u marinayaa waana ka tuurayaa hadii aan u daayo waxa dhacaysa cudur la yiraahdo waxa ku dhacayo gubasho inuu gubto oo ay mirihiisu samaan sidaas aan u jeedaanin baa loo tuurayaa oo looga saarayaa waxa weeye geedka hadda laba khayl sidaad u wada jeedaan laba khayl ayaan ka fakhday laba khayl baa ku yaala hadda waxa weeye laba khayl ayaan fakhday kuwaasi waxa weeye timirtii oo iyaduna hadda dama weeye xilliga ay soo baxdo bahashaas kala dilaacdo ayaa la fakhdayaa sida u jeedaan baan loo fakhdayaa waana mahadsantihiin waxaan jeclahay insha Allah inaan halka ka sii wadno si aan uga helo nolosheeni uga dabiro waana mahadsantihiin dhamaantiina waa salaamaya assalaamu alaykum waraxmatullah بسم الله الرحمن الرحيم niman dhul marin dhaaye male baa la yiri maanta waxaan faxlaynaa beerihii ku yaalay Coomayo waa Baargaal geedkan waa geedkii timirta ahaa timirtu astaan waxay u tahay ummadda islaamka waa geedka Ilaahay barakeeyay geedkan waxa lagu sameeyaa shaqadaas markii ay miruhu soo baxaan ayaa waxa weeyaan la faxlaa kan waa dhadigii kan waa labkii kan waa dhadigii waxa la soo qaadanayaa dhadigaas sidaas looga shaqeynayaa waa shaqo culus oo la qabanayo nimcada iyo timirta iyo barwaaqada macaan aynu aragnaa ku imaanaysa ساسا لو مرينيا وعلم u baahan jaamacad in looga baxo hadda anigu waxaan ku jiraa tababarkii waxaan rabaa timirta inaan sarco oo ka shaqeeyo maanta ay ugu horeysa marka 10 baan baranayaa arday baan ahay wax barta aan barwaaqo gaarnay meeshii la yiri weeye waa in la bartaa sidii loo sarfaxli lahaa looga shaqeyn lahaa loogu barwaaqo boobi lahaa runtii timirta dhulkeena ku taal waa arkaysaan wax badan lagama faa'iideysan waxa loo baahan yahay beeralayda in la horumariyo horumarintu ma inay dawlad ka timaado dadka beeraha bartay dadka diinta bartay dadka wax garanaya dadka hoggaanka dhaqanka hoggaanka siyaasaddu intuba dadka inay ku dhiirigeliyaan sidii beeraha loo horumarin lahaa sidii looga faa'iideysan lahaa iyagana sidii loo gacan qaban lahaa oo wax aysan awoodi karin falkariya foolma dhaqde wax aysan kaligood qaban karin loola qaban lahaa badeecada ay soo saaraan iyo timirta ay soo saaraan dariiqa ay la mari lahaayeen oo ay ku suuq geyn lahaayeen waa dariiqa ugu weyn oo hadda gobolka Gardafo ugu baahi badan yahay waa dariiqa la fagoray in la dhiso waxa lagu gaarayaa in badeecadan iyo timirtan iyo xijigan iyo xoolahan iyo kalluunkan loogu iib geeyo
puntland iyo soomaaliya oo dhan loogu iibgeeyo sidaa daraaddeed nimankan beeralayda waxay diyaar u yihiin timirta u soo gooda inay kaga qayb qaataan dhismaha waddada lafa gorayo qof walba xijiyaysatadu waxay diyaar u tahay inay kaga qayb qaadato xoolo dhaqatadu waxay diyaar u tahay inay kala qayb qaadato kalluumaysatadu inay kalluun uga qayb qaadato inta kalena waxaan u diraynaa fariin inta dalka joogta iyo inta dibadda joogtaba nin walba wixii lagugu lahaa ee xaq dalku kugu lahaa haddii aanan dhulkayga u dhaqso kuu abaalgudin soomaali kama dhalan soomaali kama aadan dhalan haddaadan dhulkaaga u abaalgudin haddaadan dadkaada la shaqayn dadkan waa u mahad celinaynaa dhulkaanu waa dhul wanaagsan marag ilaahay sida uu yahay ilaaha ka soo burqanaya dhulka beeraha nimcada xijiga xoolaha ilaahayna wuxuu ku beeray oo qayb u siiyey dad wanaagsan dadkaa nabadoonnadoodii iyo beeralaydoodii ay leedahay war walaalayaalow noo imaada nala dega nala noolaada dhulkan ku nasta ku raaxaysta ku dalxiisa runtii waa waxaan la siisan karin marka waxaan odhan karnaa baargaal iyo gardafuu waa dal wanaagsan oo ilaahay dad wanaagsan ku beeray waxaan leenahay saaxiibayaal ilaahay ha idin wanaajiyo waa idiin imaanaynaa waa idinla noolaanaynaa dhulka waa idinla dhisaynaa waddooyinka waynu dhisaynaa dal walba dadkiisaa dhista dadkeennii baanu nahay shaqada waa idinla qabanaynaa qof walba soomaaliyana waa idiin imaanayaa waa idinla dhisayaa insha allahu tacaala